بيش عبد الرحيم سليمان وشمرت شرفته قد شرفت عن دكتي وأنا عاد بانو سلام يسيجار أنكم هالعلنية. beeldaaje cali beeldaaje salaad oo ka mid ah simada dhaqanka gobolka bari ayaa maanta qada sharaf ugu sameeyay beerta nabadda ee magaalada Boosaaso madaxdii ismadii Boosaaso u joogay xal helista shaqaqadii dhawaan ka dhacday gudaha magaalada Boosaaso beeldaaje cali beeldaaje salaad iyo suldaan Anyaale Axmed Ibrahim oo horumarintii munaasabada qada sharafta ka hadlay ayaa madaxda iyo ismada ku bogaadiyay dadaalka ay galiyeen sidii xal waara loo gaari lahaa shaqaqadii ka dhacday magaalada Boosaaso ujeedada aan u soo istaagay waxa weeye marka hore inaan u mahad celiyo in allaale intiina soo ajiibtay ay ugu horeeyaan dhaqanka madaxda siyaasiyiinta culimada waxaan leenahay sidaad noo soo ajiibteen oo aad noo sharafteen ilaahay ha idin sharfo ilaahay ha idin karaameeyo ilaahay ha idin ciseeyo marxaladii nasku kaaya keentay ay ka dhacday magaalada Boosaaso oo ismada dhaqanka waxa weeye ay ku jiraan haatanne nagu soo biireen oo muddo hadda ay nala joogeen siyaasiyiintii hore ugu horeeyaan madaxweynayaashii hore iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxda federaalka iyaga ruuxooda insha Allah arintaasna waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay si maaragtay saciim insha Allah noogu dhameeyo arinta kale oo iyadana waxaan soo dhaweynayaa heshiiskii ka dhacay sayax meegaag oo maaragtay iyadana soo gabagaboway oo iyadana maaragtay arintaasna waa soo dhaweynaynaa hadda waxa nagala jooga fiqiga oo runaanti isagana arintaas ka yimi aan uga mahadnaqaynaa ismadii halkan ka tagay oo ka soo qayb qaatay oo mar labaad nagu soo noqday iyagana waa u mahad celinaynaa meeshaan ilaahay baa isugu keenay badina ummaddu intaan iyadoo haddee qoomiyada isu dhow degan baa waxa la isugu yimid taqaashinka yaraayoo ka dhacay Boosaaso gudaheeda ilaah waxaan ka baryaynaa isagana waxa weeyaan maantay cidina uma maqna baliceelna uma qodna ismadii dhaqanka culimadii siyaasiyiintii intii hawshaas u oolayd maantay way wada joogaan ilaahay waxaan leenahayna fahansiiyo sida danteenu ku jidho madaxweynihii hore ee Puntland Senator Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole ayaa ka mahad celiyay qada sharafta uu ku maamusay beeldaaje cali beeldaaje salaad aniga waxaad moodaa inaan xafladaha maanta inta boos lagu imaanayay aan qandaraas u qaatay laakiin aniga kuruud baxbaba ii noqotay hadda ka bacdi meelaha kale ka waaway maxalmaleyn la iga yeeri doono laakiin xurmo dheer bay ii tahay waxaan rajaynaynaa natiijooyinkii aanu meesha u nimi dhibaatadii meesha ka dhacday natiijadii aan ka filaynay dhowr jeer hore aan ka hadlayo aan soo dhoweynay rajada aan qabnay iyo waxa ducooyinna ku daray labadii u dambeysay iyada si gaar aan uga hadlay mid waxaan yidhi waxbaan naga gaabiso weli waxaan rajaynaynaa ciddi wax ku maqanyana soo dhoweyso ay soo dhoweeyaan tii u dambeysana waxaan yidhi waxyagi waa noo dhowdhow yihiin maanta waa ka bedelan tahayoo waxaan u malaynayaa sidkii waa dhammaaday hashii 12 bilood la sugaayay waxeedii waa dhow yihiin suldaan Siciid suldaan Cabdislaan oo hormuud u ahaa ismadii Boosaaso u joogay nabadeynta iyo xal helista shaqaqadii ka dhacday magaalada Boosaaso oo ugu dambeyntii munaasabada ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay Boosaaso amniga waxa uu xusay inay dhawaan soo gabagabayn doonaan arrimaha nabadeynta ee ay Boosaaso u joogaan laba casho shir bay ku jireen arinta waa la fagurayeen meel fiican bayna u maraysaa waxaan rajaynaynaa in ilaahay u soo dhameystiro ilaahayna u fududeeyo waana wax inoo wada yaala isla wada kaashanayna wax anaga gaar noo ah maaha waa wax uu yaala madaxda siyaasiyiinta culimada waxgaradka dhammaan wixii waxgarada oo dhan waa wax hawshaas u taalo lagana wada qayb gali doono anagu ururinta iyo talada baanu lahayn intiina waa naga dhowdahay insha Allah waxaan rajaynaynaa inay dhaqso u soo baxdo iyadoo la isku wada mid yahay gacmaha la saysto walaaltinimo iyo nabadgelyo halka ka dhici doonto aad baanu soo dhaweynaynaa waqtigeeda waana ku dadaalaynaa inaan 2-3 casho nagaga badan way soo gabagabowdo dadka shacabkana waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyo iyo horumar iyo barwaaqo in ilaahay gaarsiiyo waliba gaar ahaan magaalada Boosaaso waa magaaladii weyneyd oo caasimadda ahayd oo ummadda hooyadeed ahayd iyadana waxaan u rajaynaynaa inaan dhibaatada ka dhacday aan dib dambe u soo marin
waan ilaahay uga baryaynaa. Salmaan Ogo, wararka TV-ga Sahal, magaalada Boosaaso.